السلام عليكم كلن وعنا أصحاب كسو دواابا قلن كمانتا إيا موقال عصوب isku soo laabasho wacan wanaagsan kala maqnaasho kadib marka koobaad waa idin kaga codaaarneena muddadii aan kala maqneen cilada jira awgood waxaan saan dib u bilaabi doonaa baahinta muuqaaladii aan nooga barateen annagoo sidoo kale idin soo gudbin doono muuqaalo kale oo cusub oo xiiso leh oo aad mar dhow ka daawan doontaan janaalkeena muuqaalkeena maanta asxaabi waxaa idinku soo gudbin doonaa falanqaynta qaybta 39aad iyo dhacdooyinka ugu muhiimsan ee aan ku daawan doono waxaa xanuunsanaya maalmahan Ertugal kaasoo xanuun daran u hayay waqti dheer kadib dib ayuu u soo laabtay waxaana uu dib ugu soo laabtay xukunka waxaa run ahaantii wax lagu farxaa soo laabashadiisa oo ku soo beegantay waqti munaasab ah oo xaaladda qabiilka ay aad u cakirneed isla markaana ka sii daraysay ayadoo lagu tilmaamayo waqtiga la joogo waqtiga 9 macluumaadyo intaan in ka badan ayuu ku soo baahin doonaa muuqaalkan fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar sii share garay hana ka ilaawin like-ta si dhiirigelin noogu noqoto mahadsanidin Ertugal waa uu xanuunsanayay muddo dheer hadda ayuu dib u soo laabtay soo laabashadiisa kadib wuxuu dib ugu soo laabtay sidoo kale xukunka waxaana run ahaantii wax lagu farxaa soo laabashadiisa oo u muuqata daqiiqada 9aad waxaana qabiilkiisa uu ku sigtay halaag taas oo loo sababeynayo hardanka loogu jiro xukunka dowladda Cusmaaniyiinta kadib soo laabashada Ertugal waxa uu bilaabi doonaa la xisaabtanka dhammaan iyo sidoo kale shakhsi kasta ficilkii uu sameeyay intii uu xanuunsanaa dhinaca kale waxaa la filayaa ama la saabaalinayaa inuu Safji xilka qaadis ku sameyn doono kaasoo ahaa hogaamiyaha ciidanka waxaase xaqiiqo ah in Safji uu ciqaab kala kulmi doono Ertugal si ay ugu waana qaataan inta kale ee soo hartay laakiin arrinka Doondaar waxa uu u muuqdaa inuu qiyaamo u maleegayo isagoo u muujinaya daacad inuu yahay oo uu ku fikirayo maskaxda qabiilka laakiin waa uu isbedelay markuu arkay Safji oo dhaqdhaqaaq xooggan sameynayo inkastoo uu ku fashilmay dhaqdhaqaaq kasta waxa uu go'aansaday dib inuu u gurto maadaama uu Ertugal soo laabtay laakiin waxaa cad inuu weli haminayo sidii uu ku hanan lahaa xukunka maadaama hadafkiisa ugu weyn uu yahay sidii uu ku heli lahaa xukunka uu ku riyoonayo laakiin dhinaca kale Ertugal waa uu ka soo daahay inuu Cusmaan xukunkiisa ku wareejiyo waxaana uu la wadaagay arrintan hogaamiyaha jaamacadda Laxdulbaydaa inuu Cusmaan dhaxli doono ayuu u sheegay waxaan daawan doonaa Ertugal iyo Cusmaan oo ku kulmi doona qabriga Cusmaan hooyadii waxaa laga yaabaa in Ertugal iyo Cusmaan ay u sheegi dardaaran kaasoo ah inuu Cusmaan u diyaar garoobo xukunka qabiilka waxaan u balan qaadi doonaa inuu daacad fali doono dhaqanka iyo sharaftana dhowri doono Cusmaan waxa uu la ilmeynayaa farxad darteed sababtoo ah aabihii ma uu duleen waxaana uu kalsooni geliyay markiisii hore intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar sii share garay like-tana ka ilaawin si dhiirigelin noogu noqoto muuqaalkan muuqaalka xiga inta ku kulmi doono nabadgelyo